maanta waa ciidul fitri waa ciidii islaamka martiqaadka u ahayd faraxa u ahayd ummadda islaamka meelay joogtaba tahniyada iyo ciida masjidka jaamica ka dhacaysa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiintii maamulka galmudug oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed ducaale xaaf isaga ayaa kalimaadkiisa hambaliyada ku aadan loo soo jeedinaya isaga ku soo dhaweynaya madaxweyne ku soo dhawaa maanta waa maalin farax leh waa maalintii ummadda muslimiintu kulligood iyagoo isku calool ay farxi jireen annagana waxaa loo baahan yahay inaannu faraxaas mid la mid ah ku faraxno waxaan dhammaan hambalyo u dirahayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug hadday culimo leeyihiin hadday rag iyo dumar leeyihiin hadday dhalinyaro leeyihiin gaar ahaan ciidamada amniga noo sugay ilaahay khayr siiye waxaan kaloo jecelahay inaan ku baraarujiyo ummadda reer galmudug bishaan bisheedii waad ogtihiin gaarisaar bay ahayd geele iyo lo'da ayaa baabuur candhameelayaal lagu qaadahay maantana waa barwaaqo waa u jeedaa ma oran karnaa ilaahay baa maaragtay raxmaddiisii noo keenay kadib markii annaguna aan nabadii qaadannay adduunka waxa lagu nool yahay waa nabad haddii la waayo nolol ma jirto ilaahayna waxaan ka rajaynayaa qof walba inuu nabaddaas qaato wanaagga qaato fitnada iyo khilaafka la iska daayo alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl in qof dhintoo la dilaa ka roon in fitna la sameeyo maxaa yeelay fitnada boqolaal iyo kumayaalba ku dhimata waxaan aad iyo aad jeclahay inaan ugu naseexeeyo wixii reer galmuduga oo khilaafka joojiyo walaalayaal kaalaya gobol baan idiin dhigaynaa waa idin soo dhowaynaynaa wax allaaliya wixii aad qabtaan baan idinka daawaynaynaa walaalayaal soo dhowaadaan leenahay khilaafkaa la joojiyo